السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta iyo fiideo xiiso badan. run ahaantii ciwaankeena maanta wuxuu yahay sida loo abuurto su'aalaha wanaagsani ee noloshaada wax ka bedeli kara. ugu horeyn, haddaad ku guulaysatay inaad wax ka bedesho su'aalaha aad noloshaada weydiinayso, waxaa hubaal ahi in ay wax weyn iska bedeli doonaan sida aad u arkayso nolosha adduunyada. sidaan wada ognahay, maskaxdu waa sida dhul beereed oo kale oo adiga gaar kuu ahi. fikradaha aad iska dhaadhicinayso iyo su'aalaha aad isweydiinayso waxa ay noqon doonaan miraha aad beeratay maskaxdaada. sidaa awgeed, haddii aad mar waliba isweydiiso su'aalo qaldan, maskaxdaadu waxa ay ku siin doontaa jawaabo qaldan, waayo adigaa beertay wax qaldan. sidoo kale, su'aalahaagu waxaa lagu qiimeeyaa caqligaaga, aqoontaada, hankaaga, iyo weliba aragtidaada aad nolosha ka haysato. sidaa daraaddeed, haddaba waxaan idinla wadaagayaa 3 talo oo aad muhiim u ah oo aan isleeyahay waxa ay qayb weyn ka qaadan karaan in aan wax ka bedelno qaabka aan su'aalaha isu weydiinayno. haddaba waxa ay kala yihiin: Number 1, isweydii su'aalaha adag. waa inaad nafsadaada u tababartaa inaad isweydiiso su'aalaha adag, waayo markii aad awood u leedahay in aad jawaab u hesho su'aalahaada adag, waxaa kula fududaan doonta su'aalaha fudud, jawaabtuna waad heli doontaa. tusaale ahaan, haddii uu qof isweydiiyo sideen wax ugu qabtaa ama wax ugu qaban karaa dadka taagta daran, ama uu isweydiiyo sideen u caawiyaa dadka guurdoonka ahi ee aan waxba haysan. sidaa daraaddeed, qofka hadhow culays kuma noqon doonta inuu jawaab u helo su'aalaha shakhsiyadeed ee uu qabo, sida sideen nolosheeda wax ugu qabtaa, ama sideen guri ama guur u dhistaa, waayo waa qof markii horeba xal u raadiyey ummad dhan dhibaataysan. sidaa awgeed, qofka culays kuma noqon doonta inuu xaliyo arrimihiisa khaaska ah. su'aasha labaad, isweydii su'aalaha noloshaada micno u samayn karaya. macnaha waxaan ula jeedaa su'aalaha aad isweydiinayso ha noqdaan kuwa adiga noloshaada horumarin kara, wax ka bedeli kara, oo kuu iftiimin kara waddooyin cusub oo aad u marto waxa aad adiga hiigsanayso, isla mar ahaantaana guushaada kuu fududayn karayo. sidoo kale, ha isaga luminin su'aalaha maalaayacniga ah, wakhtigaaga qaaligaahna dili kara, sida maxaa la yidhi, iyo yaa yidhi, iyo maxaa loo yidhi, iyo sidee loo yidhi. sababtoo ahi su'aalaha noocaasi ah noloshaada waxba kuma soo kordhin karayaan, balse waxaa wax ku soo kordhin kara oo wakhtigaagana kuu kobcin kara, guushaadana kuu horseedi kara inaad isweydiiso su'aalaha wanaagsan ee adiga maskaxdaada ka guuxayo, ee aad rabto beri inaad wax ku qabsato noloshaada, inaad wax ugu qabato ummad dhan aad matalayso. qodobka 3aad, su'aalahaaga ka dhig kuwa soo jiidasho leh. haddii aad doonayso in maskaxdaadu ay kuu soo saarto jawaab macquul ah oo shaqaynaysa, waa inaad barataa habka su'aalaha loo weydiiyo maskaxdaada. tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad wax barato, halkii aad iska weydiin lahayd sideen wax u bartaa, waxaa ka wanaagsan
inaad isweydiiso sideen waxbarashadayda ugu dhigtaa wax aan aniga ku raaxaysanayo oo aan ka caajisaynin. haddaba labadan su'aalood waxa ay ku siinayaan jawaabo kuu sheegaya habka adiga aad wax u baran karto, balse jawaabta koowaad waxay ku siinaysaa waddo furan. laga yaabee in aad horay u ogeed misena daal badan, balse jawaabtaadu labaad waxaa macquul ahi in ay maskaxdaada ku siiso waddo cusub oo aad wax ku baran karto misena aad ku xiisaynayso waxbarashadaada ama waxa aad adiga baranayso. haddaba sida idin muuqato su'aaluhu waa ay kala duwan yihiin. ugu dambayntii waxaan leeyahay markii aad u fiirsato dadka dunida wax ka beddelay ama nafsadooda wax ka beddelay, waxay samaysteen su'aalo wanaagsan ee noloshooda isbeddel ku samayn karaayo. adigana waxaa hubaal ahi haddii aad beddesho su'aasha aad isweydiinayso aad ka dhigto mid qurux badan inuu kuu beddelmayo fikirkaaga uuna sahlnaan doonto guusha aad nolosha ka gaari karto.